السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحديد العاق حلال وحونا ذيك سيدا دقال دو ماليسيا سيدا أيو عمر المختار وغهر يميد gumeystihii Talyaaniga 20 sano bishii September 17 keedii 1930 maamulkii gumeysiga Talyaaniga wuxuu daldalay Sheikh Umar al-Mukhtar waqtigaana wuxuu ahaa 73 sano jir. inta badan iska caabinta xoogga Ingiriiska Faransiiska Talyaaniga gumeystaha ka hor uusan noqonin halyay nool iyo biliba halyay qaran oo Arab ah waa kuma Umar al-Mukhtar. magaciisa dhameystiran waa Umar bin Mukhtar bin Umar al-Nafad al-Hilal wuxuuna dhashay bishii Agoosto 20keedii 1858 isagoona loogu yeeri jiray libaxii lama dagaanka sheekh mujaahidka iyo waliba sheekh shuhadada. Umar al-Mukhtar wuxuu ku dhashay tuulada Badan oo ku taala buurta cagaaran. aabiisna wuxuu ku soo barbaariyay islaamka oo laga soo dheegto manaahijta sunniyiinka ee ku salaysan quraanka iyo sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam. isaga iyo mahdi al-sunnisan waxay u kaxaysteen koonfurta bariga saxaraha ee Liibiya kadibna waxay u sii gudbeen galbeedka Suudaan halkaas oo libaax ugaarsada ah kula kulmeen. mid ka mid ah raggii galbinayay ayaa soo jeediyay in ay geel furfuraan si qatarta lagu badbaado balse Umar al-Mukhtar wuu diiday. sanadkii markuu 1897 mahdi waxa uu u wakiishay in uu noqdo sheekh magaalo la yiraahdo Suweesiya al-Qasr oo ka tirsan gobolka Green Mountain. sidaas darteedna xilligaas waxa uu watay magaca Sadiiq. markii gumeystihii Faransiiska u dhaqaaqay dhanka Chad sanadkii markuu 1899 waxaa loo diray Snowsin si uu u hortago duulimaadka maadaama sunniyiinku u arkaan balaarinta Faransiiska inay qatar ku tahay. sanadkii markuu 1908 wuxuu kula dagaalamay askar ka socotay gumeystihii Ingiriiska xadka Masar iyo Liibiya isagoona aagaga Baardiya Sulim iyo waliba gumeystihii Talyaaniga wuxuu go'aansaday in uu qabsado Liibiya sanadkii markuu 1911 isagoona ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sanadkii markuu 1912 ayuuna Liibiya ka dhacay taasoona gumeystaha Ingiriiska ku duulay dalka Liibiya. Umar al-Mukhtar xilligaas wuxuu 53 sano laakiin ilaa waqtigaas wuxuu ahaa hogaamiye iska caabinta Liibiya ee ka soo horjeeday gumeystihii. jab weyn ayaa ka soo gaaray weerarkaas. muddo 20 sano Liibiya waxaa ka dhacay dagaalo badan oo waaweyn oo u dhaxeeyay iska caabintii al-Mukhtar iyo waliba gumeystaha. laga yaabay kii ugu caansanaa ee uu ahaa dagaalkii darna ee sanadkii markuu ahaa 1913 kaasoo socday 2 maalmood oo lagu dilay 70 askari oo ka tirsan Talyaaniga laguna dhaawacay ilaa 400. sidoo kale waxaa kamid ah dagaaladii uu caanka ku ahaa al-Mukhtar dagaalkii la oran jiray Aynmar oo dhacay sanadkii markuu 1913 dagaalkii Shaaq oo dhacay sanadkii 1914. muddada iska caabinta waxaa dib u dhacay abaartii ku dhufatay wadanka sanadkii markuu 1913 ilaa 1915 kadibna Talyaanigu wuxuu la wareegay intii badan aagagii muhiimka u ahaa ee bartamaha waqooyiga. tii lagu jiray duulaankii Talyaaniga wuxuu u dhaxeeyay Zawaal al-Qasri iyo Kinkan ilaa ay galeen gacanta Talyaaniga bishii September 1913.